xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ku soo bandhigay dowladtuska awoodda iyo taageerada xisbiga kulmiye ku leeyahay magaalada Burco. taageerayaasha xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo dabaal degayay ilaa iyo habeenkii xalay ayaa iskugu soo biyo shubtay fagaaraha khayriyada magaalada Burco. waxaana dadweynaha gobolka Togdheer kala soo qayb galay Isusoo baxan wafti ballaaran uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed. waxaana halkaasi dadweynaha kala hadlay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer, xubno ka mid ah golaha wasiirada Somaliland iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye. waxaana dadweynaha kula ballameen inay codkooda siiyaan maalinta cod bixinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye. barnaamijkii ku galay 2012 doorashada boqolkiiba 95 wuu fulay waxqabadkii xisbiga kulmiye uu ku ballan qaaday. maanta aynu soo bandhignay insha Allah boqolkiiba 100 wuu fulayaa insha Allah taala. waxaynu rajaynaynaa taala xukuumadeena cusub ee sanadka dambe hawl gali doonta bisha 12aad ee sanadkan insha Allah taala iyadoo inay fuliso barnaamijyo cadcad oo taariikhda adduunka gala. maalin kasta oo isu soo baxa oo maanta aynu ku jirno maalintii afraad oo maalin walba maalinta ka dambaysa ay sii badanayaan taageerayaasha isu soo baxaya soo bannaan baxaya ay ka sii badanayaan. aad iyo aad baan idinku hambalyeynaya taageerayaasha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer. ragga aflagaadada meelahan ka sheegay xabaalaha soo qaday war waxaa looga baahnay barnaamij siyaasadeed la kaalay. muuse annagu waxaanu ku aaminay dalkan baanu ku aaminay walaalayaal waxaan idinka baahan yahay inaad ninkaan ola soo saartaan dalkana horumar si loo gaadhsiiyo. waa maxamed biixiyoonis, waa ismaaciil yare, waa rag dawladii hore ka soo shaqeeyey, waa raggii ka qayb galay inqilaabkii la doonayey dawladda jamhuuriyadda Somaliland ee Axmed Maxamed Maxamuud Sileeye hogaaminayo inay inqilaabaan. waxaynu leenahay waanu ku barannay banaadiici baa tee iska noqo. yaa laydinka badin waxaan gaar la hadlayaa aad ula hadlayaa haweenka iyo dhallinyarada kuwii weligood guusha keeni jiray guusha ilaaliya ku tabca xooggiin iyo cidlo ku dhammaan. waxaad faari kartaan markaad soo saartaan murashaxiina labaad idinkaa kursigii ku fadhiya haddii laydinka badiya waa ceeb. waxaynu ku dooranaynaa xisbiga kulmiye danaynta uu danaynayo dhallinyarada inuu wax u qabto, haweenka inuu wax u qabto, waddooyinka inuu wax ka qabto, inuu ictiraafka dadka raadiyo. shaqo qoray ha loo diyaargaroobo, ha lagu taageero gudoomiyaha, ha lagu doorto Bixii. qodobka koowaad waa barnaamijkii xisbiga kulmiye 2010 ee boqolkiiba 80 fulay soo maaha, ee wadda leh, ee caafimaad leh, ee darajo ciidan leh, ee aqoonsi leh, ee waddooyin leh. waan idinka mahadnaqaya. waxaan doonayaa inaa 3 maalmood inoo horeyna sidan isaga fiican u timaadaan. maalin kasta oo aynu isu soo baxno way ka duwan tahay ama way ka weyntay. reer waddani kaambeynkii iyo ololihii bay dhabqiyeen. daraad xaggay joogeen miyaa fagaarayaasha ku aragteen? waxaa ku soo hadhay in guddoomiyahooda musarraxa daba guuraysa oo marba daba ama guurayso marba meel daba socota, laakiin fagaarayaashii iyo golayaashii waynu kaga guulaysanay. waxa maanta madaxda waddani ka socdaa waxa weeye inay idin qaybiso, inay colaaddii laga soo dhaafay ay dhexdiinna mar labaad ka abuurto. marka nabadgelyadiinna la burburiyo, dagaal eheliya laydinku sameeyo, nidaam dawladeed uu jiri waayo, markaasay suuragal noqonaysaa qolada xamarna laysu shaqanayo in xamar laydin geeyo. annaka farmaajona taageeri maayo, odhan maayo xisbiga kulmiye iyo musharaxooda kharashna ha loo diro, adduunyadana odhan maayo nimankaasaa midnimadii keenayana na odhan maayo. ayaga muxuu odhanayaa miyaa garanaysaan? qoladii dawladdii farmaajo adeerkii safaaradihii ay ka wada shaqayn jireen weeye. hadhaagii maxamed siyaad barre dawladdii siday isu yihiin dee taasay isugu sanqanayaane annaku meel la isagama nimaadno. cabdiraxmaan rooble cabdilaahi cabdiraxmaan Trike, Kalsan TV, Burco.